mahad dhammaanteed allah subxaanahu wa tacaala bay u sugnaatay allah halkan iskugu keenay inagoo ka shaqaynayno amniga iyo badbaadada qaranka Soomaaliyeed ee naloo igmaday ee naloo dhaariyay waxaan mar labaad halkan ka salaamayaa gudoomiyaha ku-meel gaarka guddiga doorashooyinka golaha baarlamaanka bahda saxaafadda amniga iyo dhammaan xubnaha ka soo qaybgalay meesha fadhiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib magacaygu waa doctor axmed aadan axmed waxaan ahay dhakhtar madashiina dalka dibaddiisa ku soo waxbartay meelo badan oo shaqaale UN iyo isbitaallo kala duwanna ka soo shaqeeyey shaqo badan oo qaybaha hay-adaha UN-ka iyo local NGO fara badanna ka soo shaqeeyey iyo isbitaallo badan hase ahaatee ka mid noqday baarlamaankii sagaalaad ahaa hayihii wasaaradda caafimaadka ee wasiirkii kuna magacawnaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka intaas iyadoo CV-gayga la qaybiyey waa kormarka qofka aan ahay intaa kadib walaalayaal waxaan ku jirnaa bishii barakaysneed waxaan aaminsanahay dalkan qodbad dheer oo qurux badan iyo hadallo qurux badan oo fara badan waa la soo jeediyey waana la jeedin doonaa laakiin anu ra'yiga aan qabo shaksi ahaan annagoo ka faa'iidaysanayno bishan barakaysan iyo xaaladda uu dalka ku jiro tobankii dambe oo xilli cibaado iyo bil cibaado ay tahay waxaan qabaa fikirka ah dalkan inuu u baahan yahay duco dalkan inuu u baahan yahay duco Soomaali inay u baahan tahay duco ana fikirkii afkaartan qabay ka mid tahay anigoo codsanayo codkiina inaad isiisaan haddaad isiisaan codkiina aan jeclahay oo codsanayo inuu Allah subxaanahu wa tacaala igu xil asturo iwaafajiyo waddada san iyo khayrka igana dhigo mid guta xilka loo igmaday ee guddoonka golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka labaad aan aaminsanahay inaan noqdo mid ku sifooba ku adkaada ku dhaqanka dastuurka iyo xeeroosaadka dalka u yaalla ayagay ku qeexan yihiin waxaa la sharxahaya faraha badan hadday tahay xasaanad hadday tahay amni shacab hadday tahay shaqaale hadday tahay waxyaabaha kale ee lanoo igmaday halkaasay ku qeexan yihiin marka waxaan leeyahay walaalayaal haddii baarlamaankan guulaysto guddoonka uu guulaysan xukuumaddana way guulaysan sidaa darteed waxaan qabaa dhagihiina iyo codkiinaba inaaday amaahisaan oo aan u ducayno dalkan iguna igmataan oo codkiina isisaan annagoo ka faa'iidaysanaya bishaa barakaysan iyo tobanka dambe ee cibaadada dalkan waxaana sugahayo wax aan hadda tiradaada carabka aanan ku soo bari karin halkan laguma soo koobi karo waxa maanta baahi ee jira ee na laga rabo inaan samata bixinno ilaahay oon kaashanno ducaysanno oon igmadnano mooyeene mid qodbad qurux badan iyo hadal qurux badan oo halkan aan ka soo jeedinay uu kaafiyi karo ama uu dabooli karo baahidaas ma aha ra'yigaan qabo waxaa weeye aniga oo ku adag ku dhaqankaas in kow mudnaanta la siiyo waxa lagu heshiiyey Soomaaliya ku heshiisay oo ah dastuurka qabi qoraalka iyo xeeroosaadka baraha baarlamaanka u yaalla haddana inaan noqono kuwo waxa maanta culayska intaa la egu sugayo kuwo ilaahay u fududeeyo haddaan guulaysano ilaahay inoo fududeeyo ducaysadana waxaan aaminsanahay inaan noqono kuwo ilaahay uu keeno ay dalkan kii samata bixin lahaa xukuumaddii lala xisaabtami lahaa kuwii sabab u noqon lahaa allaha naga dhigo khilaafkan la daashaday ee xukuumad iyo baarlamaan iyo guddoon ah kuwii xal u noqon lahaa dalka isku keeni lahaa khilaafkaas allaha naga dhigo kuwii dhammaystiri lahaa dastuurkan qabiyo qoraalka 10 sano ah ee halkaa yaallo qarashka ku baxayna aan garan karno maantana ina sugahayo Soomaalina inaga sugayso intana daawanaysa inta fadhidaba kuwii ilaahay u fududeeyey oo alla ku asturay xilligan maanta aan joogno Soomaali intaanan umana aqoon badna umana aqli badna umana karti badna waqtigii nasiibka ayaana keenay tiina keenayna waana lagula xisaabtamaya imtixaanka adduunkeena ka mid tahay
kuwii alla u fududeeya hadday tahay qabiil qoraalka dastuurka dhamaystirkiisa hadday tahay amniyaadka hadday tahay ka faa'iidaysiga khayraadka dalka yaallo hadday tahay colaadaha soo noqnoqday ee shacabkii dadka dhexdiisa ah hadday tahay diinta la siyaasadeeyey iyo qabiilka la siyaasadeeyey ee aan ka dhiganay xeer iyo dhaqan ama kaar ama aqoonsi aan ka dhiganay dalka ka jira hadday tahay askarteenna iyo ciidamadeenna dayacan mushaar la'aanta ah ee bannaanka joogo ee inaga sugaayo maanta inaan ayagii dayacoodii iyo waxoodii aruurino oo mushaarkoodii iyo dhaqaalahoodii aan ka hadalno hadday tahay kuwa badaha ku libqanaya ee bannaanada ku xihan ama xabsiyada ku jira uu hadidoodii iyo qareemidoodii inaan u qareenno oon u hadalno oo kuwaas aan aruurino hadday tahay kuwa bannaanka fadhiya ee shaqala'aanta derbiyada fadhiya ee naga sugaya baarlamaankii Soomaaliya iyo dawlad baa dhalatay baarlamaankii baana maanta dhashay shaqo ayaan rabnaa iyo shaqo abuur kuwa inaga sugaya maanta inay shaqo helaan oo halkaa fadhiya kuwa inaga sugaya inaan u doodno amnigooda iyo daryeelkooda walaalayaal waxaas iyo wax ka badan oo halkan aan ku soo koobi karin waa waxyaabaha inaga inoo yaallo marka waxaa weeye ducadayda allaha inaga dhigo kuwii waxaasoo hawla u yaalla samata bixin lahaa ku guulayn lahaa hoggaan dalkan iyo dadka mideeya boogaha dhaya aan boogaha danqinin kuwii keeni lahaa inuu ilaahay naga dhigana waa ilaahay baan ka baryayaa ducadana aamiin dhaha tobankii dambaa lagu dayli jiraaye cidla aqbalayna ilaahay baa og inta Soomaali ah ee halkan ka daawanaysa inta imaqlaysay hor fadhidaba iyo inta xilkan qaaday xilkeeda aan ugu duceynayo gudoon daacad dalkan waa madax dalkan daacad waa baarlamaan dalkan daacad waa samata bixiya dhamaanteen Allah naga yeelo taa baana lagaga gudbi karaa midda taale gudoomiye keligii iyo madaxweyne keligii iyo gudoomiye ku-xigeen iyo keligii oo murfid oo fikir iyo afkaar qabo qodbo qurux badan soo jeediyayna ma aha waxa yaalo wax uu qaadi karo miisaankeeda iyo culeyskeeda mid uu rogi karana ma aha sidaa darteed walaalayaal waxaan codsanay waliba ducadeyda ugu dambeyn aan ku soo koobayaa wax kasta oo halkan aan ka soo jeedino oo aan dalkan xeer uga dhigno had noqdo allaha ka dhigo mid ku qotoma oo halbeega aan adeegsano uu noqdo kitaabka quraanka munazalka iyo sunnaha rasuulka sallallahu alayhi si jiilkay ka jiil ay u noqoto shaando baarlamaanka ka soo maray wax aan dadkeena iyo ummadeena iyo jiilalka naga dambeeyo aan waxyeelaynin oo noqdo mid aan ku dhaqmi doono dalkan iyo dadka iyo diintaba haga sida aan ku dhaaranay saasaan ilaahay ka baryayaa saasaan Allah ka baryayaa saasaan idinkoo dhan inoo wada baryayaa haddaad guulaysataan umbu dalkan guulaystay ma aha aniga keligay ma aha gudoomiye keligii ma aha madaxweyne keligii ducaduna taa jamaca Soomaali meel joogtada maanta inta ay daawan iyo inta maqli doonto iyo inta haddii hor fadhidaba waxaan leeyahay dalka duc u baahan yahay hal isku duceeyo madaxda waxay ka imaataa shacab wanaagsan shacabkooda iyo dadkooda dalka loo duceeyo aniga fikirka aan qabay ra'yiga qawasaas waxaan codsigay ku soo celinayaa codkiina haddaad isiisaan inaan noqdo mid inta aan sheegayo kuna adag dalkii dadkana duco iyo midnimo iyo nabad iyo hufnaan iyo cadaalad kula shaqeeyo kuna horsado kuna adkaado inaan noqdo ayaan ilaahay ka rajaynayaa allahana noo fududeeyo xilka aan doonayno iyo waxa aan dadka ka idmanay ka noloo dhaariyay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh